indhahayga aragtidaada aad bay ugu farxayaane adoo kale aadmigan kumaan aragay idan daawado kale dunidaba ma joogte madadahabadaydi midaad darista maanta way ama daawada heli ama sadaalayo dhacay digfeera wada galay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر channel كيجا هدي تمرك كوباد إن سوبر قناة فضل سبسكرايب صار هدي أنا نو خو عشومنا هنا سيدو كله سبسكرايب صار سيدو كله لايك هاي لون شير نادين فيد بوان قدمي ما مركز السمية إن ما أنت وحان بلعبي برنامج كان هو برنامج عصب كاسو نقندو أنا قم قاعدري إما قشي عد كهذا وحن نقندو نامد كوب بحدونا إن لوق ذا قف كستو هبله وانا قف وهسي سوق قاضية هسا قف مركا waxay man iyo talent oo cod leh oo hal macnaha heesi kara ayaa barnaamijkan ka qayb qaadan kara maantana qaybta koowaad waxaan naga qayb qaadan doonaa walaalkay sidoo kale saaxiibkay Aftax Ismaaciil Aadan oo loo yaqaan Baraase marka waxa xaqan ku soo qoray ilaa dhowr heesood aan u qoray jirtay isaguna nasiib buu qaadanaya markuu nasiib qaato kadib وقاضي هذا هسا مركو رتب راس كسر dadkana maxaa السلام عليكم ورحمة الله سو saaxiibkeenii sheeg horay wixii aan oran lahaa bakiir marka waxaan aan nii sheegayaa inaan salaam inaan noo badisin wuxuu nii sheegay horta waxa jira dhalinyar badan iyo asxaab badan iyo taageeraad ku leedahay oo dhanka commentiyada badan ay soo weydiiya sidoo kale waxay soo weydiiyaan muxuu ahaa ama Instagram-ka ama meel kale war halku ka dhacay marka bal isku yarday inaad qanciso dadka aan qanciniya asxaabta aan qanciniya وحساسا ما امتحان يا رب نكون مشغول سنين وما سنتين انت عندنا تبتين انت دي انا ما نتم ديار بن قسم ويان marka waxaan leenahay bas waxaan u guda galnaa barnaamijka xaqan baqtiya nasiib ba ku qoran baqtiya nasiib kaasna isagu warka ma yaana qoray marka uu qaadanaya oo nasiibniya tijaabin nasiibkiisu tijaabinaya kadib heesta soo baxda ayuu qaadaya marka aftax mid qaadabal waxa weeyaan hadda iyo habeenkii Ahmed Yaasiin Digfeer ba qaaday heesta هذا يو هبينكي هذا البرشديني الاستاذ مويه هو كليكم انكرين هذا يو هبينكي هذا البرشديني الاستاذ مويه هو كليكم انكرين صاحب انت سنكروا لي قلنا يا صاحبتي واه عد بالله حقاقي محل دجري ولا laga dhamay maxay والله bas heesta labaad waxay noqon doontaa ma garanayo laakiin nasiibkiisu dan tijaabsanaya waxa weeyaan tani indhahaygu aragtidaada aad ugu farxan indhaha waad Umar qaad hadan bilaab heesta indhahayga aragtidaada aad bay ugu farxayaane adoo kale aadmigan kumaan aragay adoo kale aadmigan gacalooy kuma baaragay saaxib intaana hayga gudoomaan saaxiibaday waan u badan doonaa insha Allah heesta kale waxay noqon doonto ma garanay qaad nasiibka taniyo kuwii hore wada ugu yareysay bal tan yar dheere wada yaad insha Allah saaxib waan qaadana saaxib طيحي عالعيدة ترى الله يجيرو ضرورة كركودا دربان ليجا توماي طريقان كلابتنا طبيله تعيلك
igu soo degaayo darisaanu noqone midan daawado kale dunidaba ma joogte madadahabadaydii midaad darista maanta way ama daawada heli ama sadaalayo dhacay digfeera wadagalay والله استوي قديد حبدا يا دود ugu dheeraatay tan والله way macaanay kuy horaad haaf noo geysay hada asxaabtu guriga gali wasla noo qanciye marka waxa ku xigtay heesta kale afraad waana tii ugu dambeysay ee barnaamijkan maadaama uu facekii hore yahay insha Allah qaybta dambe waan soo badin doonaa haduu alla idmo marka tan qaado هستن وهس وأبحي حسوستا لا فولا قادا وبحي حسوستين دتكو جلايين تي آن هبلو إذل يذون كدورتاي أحذيان لقلي إيو وفيني سوعدكاي أحذيان لقلي إيو وفيني سوعدكاي انت وذا marka aad iyo aad inaad uga hesheen ayaan filayaa barnaamijkana waxaan horey inagu sheegay waa qaybtii koobaad insha Allah waan soo wadi doonaa qaybo badanna waa soo wadnaa haduu alla idmo aniga walaalkii Cabditax Ismaaciil sidoo iyo asxaab kale oo mar igala qayb qaadan doonta haduu alla idmo waan soo badinaa dadka codka macaan insha Allah oo barnaamijkana weekii hal mar ayaan insha Allah la socon doontiin haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan subscribe saar sidoo kale share de anaga waa noo dhiirigelin iyo hididilo ayay noo tahay barnaamijkan intaan ka xiga kulmi doonana waxaan leenahay sida iyo is arag dambe xiisa leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.